Assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh. Kusoo dhawaada aqoon doon channel. Waa casharkeenii koowaad ee maadada C language. Marka hore waxaan samaysanaynaa folder aan ku kaydsano daatada. Ugu horeyn marka waxaad tiraahdaa right click, kadib new, waxaad ka doorataa folder. Kadib waxaad ula bixaysaa magaca, waxaan ku qorinaa C language. Intaa markaan sameyno waxaan soo kicinaynaa toolka aan adeegsanayna ama applicationka. Waxaad soo kicisaa code blocks. Code blockska interfacekan ayuu yeelan doonaa ama muuqaalkan oo sidan ayuu u soo kici doonaa. Waxaa lagaaga baahan yahay inaad tiraahdo create a new project. Kadib waxaad ka dooranaysaa console application. Waxaad leedahay go. Kadib waxaad tiraahdaa next. Waxaadna ka doorataa maadada C. Next. Waxaad ula baxdaa magaca darabti inaad u bixiso. Tusaale kale waxaan soo qorinaa hello world. Kadib waxaad soo furtaa menugaas yar oo ka turjumaya halka aad ku save gareyn lahayd datadaada. Waxaan rabnaa inaan desktopka ku save gareyno, weliba waxaan rabnaa inaan ku sii save gareyno folderka C language. Waxaad leedahay okay. Kadib waxaad tiraahdaa next. Intaa markaan sameyno waxaan soo furaynaa source. Kadib waxaan ka dooranaynaa main.c. ugu horeyn waxaad qortaa hash. Kadib waxaad tiraahdaa include space dheh. Waxaan furaynaa tag. Waxaan ku dhex qoraynaa studio.h. soo xir tag. Intaa markaan sameyno enter ayaan dhahnaa. Kadib waxaad leedahay int oo u taagan intiga main. Waxaad furaysaa oo xiraysaa bracket. Kadib waxaad leedahay enter. Hadda waxaan furaynaa braces. Kadib waxaan ku dhex qoraynaa codeka aan u baahannahay inaan soo bandhigno. Casharkan waa casharkii koowaad ee HTML5. Waxaan u baahannahay kaliya inaan shaashada wax ku soo daawacno. Tusaale kale waxaan soo daabacaynaa hello world. Waxaad leedahay printf oo ah ii soo daabac shaashada ama screenka wax igu soo daabac. Kadib waxaad u dhiibaysaa statementigii ama waxaad rabtay in lagugu soo daabaco shaashada. Waxaad leedahay double quotation. Kadib waxaan leenahay hello world. Intaa markaan dhahno waxaan leenahay /. Kadib waxaad taabataa n oo u taagan new line. Waxaad ku soo xirtaa semicolon. Ogow code walba oo qorayso waxaad u baahan tahay inaad semicolon ku soo xirto. Kadib waxaad tiraahdaa return value ha noqdo 0. Kadib waxaad ku soo xiraysaa semicolon. Control S dheh saad u save gareyso codekaada. Waxaad imaanaysaa halkan build and run. aynu aragno waxa aynu sameyn. Saa arkaysaan waxa inoo soo baxday programkeeni ugu horeeyay ee hello world. Waan filayaa inaad ka hesheen muuqaalkan aadna ka faa'iideen wax badan. Ha ilaawin inaad like saarto, share dhahdo, comment-na aad ka soo bixiso. Intaan ku kulmi doono casharka xiga waxaan idinkaga tegayaa sida ay nabadgeliyo. Wassalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh.